waxaa saacado yar ka hor lagu boqray gudaha qaansada Wembley xulka qaranka dalka Talyaaniga kadib markii ay guul ka gaareen xulka minankooda la joogay Ingiriiska yaa ka dambeeyay guushii wadanka Talyaaniga waasatee kooxda xidigaheeda ay khasaarada u geysteen xulka qaranka dalka Ingiriiska. Jorginho miyaa ku guuleysan kara abaalmarinta Ballon d'Or ama xidiga adduunyada? Maxaa ka qaldanaa labada dhinacba? xogahaasi iyo waxyaabihii kulanka ka dhacay ayaan dul mari doonaa. laakiin marka hore haddii aad xilligan muuqaalkeena daawanaysid like saar muuqaalkan oo u sheergaray asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyo la jaanqaadkaaga. xulka qaranka dalka Talyaaniga ayaa ku guuleystay koobka Euro 2020 iyagoo rigoorayaal ku garaacay Ingiriiska oo taageerayaashiisii 10,000 ahaa ay waxba u tari waayeen. xidigaha xulka qaranka dalka Ingiriiska bilowga waxaa la filanayay iyagu inay natiijada heli karaan, laakiin waa laga daba yimid oo rigoorayaal ayaa koobka lagaga qaaday. xulka qaranka Suuri ayaa ku dabaaldegaya haatan garoonka Wembley ee magaalada London iyagoo ku badiyay rigoorayaal 3-2 ah kulan ay ciyaartiisii caadiga ahayd ku soo dhamaatay gool iyo gool. Ingiriiska ayaa labadii rigoore hore dhaliyay, laakiin saddexdii dambe ay iska khasaariyeen, halka Talyaaniga laba rigoore laga qabtay ay saddexda kala dhaliyeen, waxaana ay sidaas ku hanteen koobka Euro 2020. bilowga ciyaarta xulka qaranka dalka Ingiriiska ayaa helay goolkii daafurka, gool aan la filan karin halkii uu ka yimid iyo halka laga dhaliyayba waxaa shabaqa taabsiyay Luke Shaw kaasi oo caawinteeda lahaa Trippier. taageerayaasha garoonka fadhiyay oo tiradooda kor u dhaafaysay 60,000 oo taageerayaal ah ayaa dhammaantood sarakacay iyadoo qaarkoodna ay haysteen koob macmal ah oo loo ekeysiyay midka Euro, waxaana iska dhaadhicinayeen in koobkan Talyaaniga uu farahooda ka baxay. qaybtii hore Ingiriiska ayaa ku gacan sarreeyay 1 gool, laakiin Talyaaniga ayaa soo laabtay daqiiqadii 67 kadib markii shabaqa uu taabtay Leonardo Bonucci oo kubadda ay birta soo celisay shabaqa ku hubsaday. intaasi kadib fursado badan ayay labada kooxood heleen, waxaana fursadaha ku badnaa Talyaaniga ha yeeshee 90 daqiiqo iyo daqiiqadii dheeriga ahaaba waxay ku soo idlaatay gool iyo gool oo ay labada xul isla dhaafi waayeen. haddii aan kuu qisho rigoorayaasha sida loo kala turtay, Talyaaniga ayaa ku horeeyay, Bilardi ayaana u dhaliyay rigoorada koobaad, Harry Kane ayaa sidoo kale isaguna dhaliyay marka la eego inuu ahaa xidigii ugu horeeyay Ingiriis ee rigoorada tuura. Belotti oo Talyaaniga qayb ka ayaa rigooradii labaad ee dhanka Talyaaniga laga qabtay. Harry Maguire iyo Leonardo Bonucci ayaa isugu faanay in laba rigooro ay dhaliyeen. Rashford oo ciyaarta badal lagu soo geliyay ayaa birta kubadda ku dhuftay. Rash waxa ciyaarta loo keenay in rigoorada uu ka faa'iideeyo maadaama uusan nasiib u yeelan in daqiiqadihii caadiga ahaa uu waqti badan ciyaaro, laakiin isaga ayaaba qaranka khasaariyay. Bernardeschi ayaa rigooro u dhaliyay Talyaaniga. Sancho oo isna badal ku soo galay daqiiqadii Rashford ciyaarta la keenay ayaa isna laga qabtay oo rigoorada khasaariyay. Jorginho wuxuu dhalin lahaa rigoorada guusha waa Talyaaniga, balse isagana waa laga qabtay. maxaa xigay? ciyaaraanka Arsenal Saka ayaa rigooradii ugu dambeysay isagana laga qabtay. natiijada rigoorada waxay ku soo ilaatay Talyaaniga oo 3 ah iyo Ingiriiska oo 2 ah. taageerayaasha kooxaha qaar ee Ingiriiska ayaa xilligan isxifaaleenaya. natiijada tuurista rigoorada xidigaha khasaariyay waxaa la oran karaa waxaa ugu badan Manchester United marka la eego dhanka Ingiriiska, maadaama labada xidig ee rigooro tuurista darteed ciyaarta loo keenay xilli ciyaareedka soo socdana Manchester ka wada tirsan ay labadooduba rigoorada khasaariyeen waa Rashford iyo ciyaaryahan Sancho. inkastoo iyaga xitaa ay naga jeclaan lahaayeen inay shabaqa gaaraan, laakiin nasiibka ayaa halkaasi dhigay, halka wiilka Arsenal ee Saka isaguna rigooradii ugu dambeysay khasaariyay, taasi oo dhinac u riday natiijada kulanka. marka dhankaas laga eegana laba xidig oo Manchester xilli ciyaareedka soo socda qayb ka noqon doona weliba kuwa ugu muhiimsan ayaa Ingiriiska ka tuuray tareenka tartanka koobka Euro 2020. xulka qaranka dalka Talyaaniga qaladkooda ugu badan wuxuu ahaa in isku dhidhiibkooda uu badnaa, laakiin ciladooda waxay ahayd inaysan lahayn xidig qadaxa ah oo kubadda weeraryahanada u tuura, iyadoo Jorginho iyo weliba Verratti ay kubadda inta badan qadka dhexe ku haynayeen. Ingiriiska waxaa lagu dhaleeceyn karaa inaysan laftoodu lahayn xidig diyasho ah oo kubadda inta dhexda ka qaada weeraryahanada u falaashi kara. Sterling iyo weliba Harry Kane labaduba qaybtii labaad ee kulanka ma helin fursado ay gool ku dhalin kareen. Mount ayaa ciyaarta iska dhex taagnaa, xidigihii la keenay Ingiriiska ahaana wax badan ma aysan qaban. ciyaaryahan Jorginho
si qurux badan ayuu ciyaarta ula falgalay isagoo dhaawaca ayuu tallaabada baasaskiisa dhaqaaqa iyo wax walba oo ciyaartaasi looga baahnaa uu sameynayey marka ay Talyaaniga koobka kor u qaadeen waxaa durbo bilaabanaysaa miyuu Jorginho ku guuleysan karaa abaalmarinta kubadda dahabka ah in Jorginho uu ku guuleysto abaalmarinta xiddiga adduunka waa wax dhici kara laakiin hadalhaynta ugu badan ee haatan ee in Jorginho uu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or waxaa kaga hormaray Lionel Messi kaasi oo isaguna Copa America ku guuleystay waan arki doonaa xiddiga ku guuleysta abaalmarintaasi